This is a cloud seeding machine. sidee loo sameeyaa roob dadsame ah artificial rain? dunidu markii ay abaar iyo oon ka bixi weyday ayaa waxay ibni aadamku ku fikireen sidii ay u sameyn lahaayeen roob ay iyagu mas'uul ka yihiin. maskax tuujin iyo miyir ururin dheer kadib waxay ku guuleysteen tijaabadoodii ugu horreysay, taas oo ay ku guuleysteen inay sameeyaan daruuro onkadaya. nidaamkan oo afka qalaad loogu yeedho cloud seeding waa hab iyo hannaan lagu abuurayo daruuro macmal ah oo dadsame ah, kuwaas oo ay suurtagal noqoto inay da'aan. haddaba si loo hirgeliyo habkan waa in la adeegsadaa kiimikooyin kala nooc ah oo ay ka mid yihiin silver iodide iyo potassium iodide. labada nooc ee kiimikeed ayaa hawada lagu sii deynayaa iyadoo la adeegsanayo diyaarado helikobtar ah. dabadeedna diyaaradahani waxay dhinac ka istaagayaan daruurihii caadka ahaa ee cirka ku dahaadhnaa, kadibna waxay ku furayaan kiimikooyinkii ay sideen, kadibna waxay isku ururaya dhibcihii caadka ahaa iyagoo barhkoodba barhka kale ay soo jiidanayaan. haddaba si ay u dhacdo in ay daruuro samaysmaan oo caadkii iyo hawadii biyaysnaa ay isku soo ururaan, waxay diyaaraduhu soo kala istaagayaan darafyo kala fog iyagoo ku buufinaya kiimikooyinkii kala duwanaa si ay isku soo jiitaan. kadibna daruuraha ayaa la danabeynayaa si ay u galaan laba jawi oo kala duwan, mid kulul oo diiran iyo mid qabow. habkaas oo ah habka uu roobka dabiiciga ahi u rimo. intaas kadib ayaa waxa ay daruuruhu bilaabayaan in ay da'aan oo ay onkadaan. si kasta oo ay ilmi aadam u dadaaleen, haddana waa kuwa gacmahooda khatar weyn ku samaysta. habkani waa hab khatar badan deegaanka ku sababi kara. waxay hawada ku sababi karaan in ay ku bataan carbon dioxide-yadu. kiimikooyinka silfartu waxay wataan sumo aad u khatar badan oo dhaawac weyn u geysan kara nolosha dhirta iyo weliba xayawaanka. markii u horreysay waxaa tijaabadan lagu sameeyey magaalada Dubai, waana lagu guuleystay. muuqaalku intaas ayuu ku egyahay daawade ee like saar una sii sheer garee saaxiibadaada kale haddii aad nagu cusub tahay. wax badan ayaa ku dhaafay.